صوم 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 بشهر رمضان صوم 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 بشهر رمضان صوم 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 صمنا ذيو فرض كأوغا فقراء ذا سكذا سيا صمنا ذيو فرض كأوغا فقراء ذا سكذا سيا سقذ دحل الكيتوسا ربي أسجود بريا ربي أسجود ركوعا سقذ دحل الكيتوسا ربي أسجود بريا ربي أركوع سجودا رمضان 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 كريم رمضان 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 كريم لك باب التوبة مفتوح والقرآن دواء الروح وعبير بالخير يفوح لك باب التوبة مفتوح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. دعوة يلقوا هورين رمضان كريم رمضان مبارك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كوسا هذا برنامج كني وهذا علماء حلقة ديسي أفريق طبعاً. دعوة يال سوى داركتان با وحعاو مرتي برنامج كني نجواه دكتور الشيخ فيصل محمد علي وحلقات كهورنا كوسو تري. وجهورين دعوة يال دمانتين با شيخ أمرك هوري إلى سدوية الشيخ فيصل كوسو دو برنامج وهذا علماء حلقة ديسي أفريق طبعاً. وعندوه بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. داوديال برنامج كعاوة أما حلقة عوان كذا حاول نقونا يا عاوة عقل قفك بن آدم كأه والله هريسيون نصوص القرآن كيا حديثه وحن أجنا هي نصوصته وحيكوك بنت هي آياته لهي وسود شيء القرآن كها يا حديثتي بل بدأس والله هريسيو عقل قفك أما قفك النفتيس يشهودي سوك هريسيو بل وحن أجنا حكم كذا يسد أي نقونيسو دكتور كأي الموضوع عاصف فحسن أي نكبر دونا داوشوا نكسن. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على عبده وخليله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعني رنتي وموضوع دياد مهم وموضوع ضد بدني أي خلط كجدعان يجو اعتماد هي عقلك isla markaana garan waayay xadka uu caqligu leeyahay. ilaahay subxaanahu wa tacaala khalqigan isaga abuuray markii uu abuuray ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu u soo diray rusul iyo kutub hagaysa waxaana ilaahay tilmaamay in uu waxa uu ka doonaya ay yihiin cibaado iyo inay isaga caabudaan wamaa khalaqtu ljinna walinsa ila liyacbuduun jin iyo insi uma abuurin إلا لعبادتي بالله سبحانه وتعالى إن يعبدان عبادة سمرك وحي كسر يسنتهاي تشريع كان يا وحلا يسديدي ولا دوني إن لقف قعدو يا وحلا دوني إن لفوليو إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم رسولك الله عليه الصلاة والسلام هذا شيء أمره فأتوا منه ما استطعتم كلك عليه وحد ودان وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه شيء هداني دين ديدنا كدركا إلهي سبحانه وتعالى وحاو تلمامي قفك أي مسلم كينا إيمان لقاه لينين وكبد بادو إلا إلهي سبحانه وتعالى أنبت قليو حكم كيس فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا لك تسليما ويسلموا لك تسليما وحي إلهي لي فلا وربك لا يؤمنون ربي قابا كل أرتمي
iimaan lagama helayo xataa yuxakimuuka fiima shajara baynahum ilaa ay xakam kaa yeeshaan wixii dhexdooda dhex mara weliba uma laa yajiduu fii anfusihim xarajan aanay lafahooda ka dareemin xaraj iyo cidhiidh iyo dhibaato aanay ka dareemin ee ay adiga ku nabadgelinayaan waxa aada xukunto taa marka waxaa laga qaadanayaa in qofka mu'minka ah lagula khitaabo loo sheegay in waxa ilaah iyo rasuulkiisa ay xukumaan inuu qaato waxa ilaah iyo rasuulkiisa xukumaan waxa weye caqligaagu wuxuu keeni karana wuu noqon karaa waxaanu keeni karina wuu noqon karaya ولهذا baa culimadu yidhahdaan cibaadaadka iyo waxyaaba cibaadaadku laa majaala fiiha lilcaql caqligu meel uu majaal ku leeyahay oo uu keeni karayo ma aha salaada subxa maxaa 2 looga dhigay ma keeni karo cishahana 4 looga dhigay duhurkana 4 looga dhigay maqribkana 3 looga dhigay wax caqli lagu gaari karayo lagu idraakayo ma aha haddaba caqligu nusuusta taabici buu u yahay ma aha inuu isagu horgalo oo uu yidhaahdo sida dadka munxarifiinta ay yidhaahdaan nusuusta kitaabka iyo sunnadu waa danni caqliguna waa qaطci hadday labadaasi iska hor yimaadaan ka danigee malaha ah ayaa ka qaطciga raacaya ilaahay subxaana wa tacala wuxu uhi yaa ayuha aladiina aamanuu laa tuqadimuu bayna yaday illaahi warasuulih kuwa iimaanka laga helayow ilaahay iyo rasuulkiisa ha ka horaynina ha ka hor hadlina ha ka hor xukumina iyaga dabagala sababu nusuul baanay lahayd aayaddu ahlilcilmigu ay tilmaamaan sidaa daraaddeed naska sharciga ahi wuxuu keensanayaa in isaga la dabagalo oo ilaahay subxaana wa tacaala uu khalqiga ku faral yeelay inay isaga keliya caabudaan oo adeecaan oo isaga ay tashriica ka qaataan oo ay u nabadgeliyaan xukunka culimmada waxay tilmaamaan caqligu sidiisaba waa manaadu takliif ee ma aha manaadu aliijaad isagu ma keenayo tashriica marka la joogo caqligaa wuxuu keenay in salaadaa la faral yeelo caqligaa wuxuu keenay in waxaa la xarimo sharcigu ma laha sharcigu wuxuu gartaa oo keenaa waxaan la diiday iyo waxaan la amray inuu fulin karayo ama fahmi karayo ayaa caqliga wadiifadiisa iyo shaqadiisu ay tahay shaqadiisu maaha inuu keensanayo waata kale caqligu cilmigaa ka horeeyey cilmiga sharcigaa ka horeeyey ilaahay subxaana wa tacaala cilmigan kitaabka iyo sunnada samawaadkaba intaan la abuurin baa ilaahay subxaana wa tacaala uu qoray oo uu waxa weeye fi kitaab dhex yeelay caqliguna waa xaaditho shalay ayuu yimid oo ilaahay subxaana wa tacaala abuuray oo ilaahay abuuray sidaa daraaddeed waxaan suuragal ahayn caqligii shalay la abuuray in waxa weeye loo celiyo oo lagula noqdo la yihahdo sharciga kitaabka iyo sunnada isagaa xukumaya dhinaca kale caqliga caafimaadka qaba ee saliimka ahi suuragal ma aha inuu khilaafo naska sariixa ah ee saxiixa ah nusuusta kitaabka iyo sunnadu kitaabka alleh kulluhu waa saxiix waana sariix kitaabka alleh aayaadkiisu waa saxiixoo way sugan tahay oo wax khilaafi kuma jiraan laakiin sunnada nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxay u qaybsantaa mid saxiixa iyo mid daciifa haddaba nasku hadduu ansaxo caqliguna uu caafimaad qabo iskamaba hor iman karayaan laakiin xaggee ishkaalku ka imanaya caqligaa xanuunsanaya waa caqli mariida oo wuxuu ku xanuunsanaya ama shubuhaat ama shahawaad buu ku xanuunsanaya ama naska la leeyahay caqligiibuu ka hor yimid ayaan sugnayn oo aan nebiga calayhi salaatu wasalaam aan ka sugnayn wailaa suuragalba ma aha caqli nabad qaba oo caafimaad qaba iyo nusuusta sharciga kitaabka iyo sunnada nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam inay iska hor yimaadaan marnaba suuragal ma aha waa ta kale caqliga haddii la yidhaahdo caqliga ayaa horgelaya oo nusuustu daba soconaysaa biayi caqlin tuusanu shariica cuquushu way kala duwanta aadamuhu iyagaa dareemaya inaanay biniaadamku isku caqli ahayn caqliga xakamka noqonaya haddii la yihahdo kitaabka iyo sunnada iyagu waxay dabagelayaan caqligaa horeeya caqliga xujada noqonaya ee la dabagelaya ma caqliga cabdiba mise waa caqliga maxamed ilaa cuquushii waa tafaawut baa udhexeeya sidaa daraaddeed qowlka odhanaya in laga hormariyo caqliga naska iyo sharciga laga hormariya waa qowl faasida sharcan wa caqlan caqliga saliimka ah laftiisa ayaa diidaya in qowlkaasi uu baatil yahay
haddaynu eegno salafkii ummadda aad iyo aad ayay u tacdiimin jireen. ilahay wuxuu yihi waman yucadim shacaa'ir allahi fainaha min taqwa alquluub. in la weyneeyo shacaa'irta alleh iimaan iyo alla kacabsi bay asal u tahay. in la weyneeyena waxaa ka mida in la dabagalo oo aan laga soo celin limaada iyo kayfa inaan laga daba keenin. haddaad eegto saxaabada, nebigu calayhi salaatu wasalaam amar buu bixin jiray. amarka iyagoo aan fahmin oo aan isweydiin ayay sidiisa u fulin jireen. nebigu calayhi salaatu wasalaam maalin maalmaha ka mid ayuu saxaabada tujiyey, kadibna isagoo salaadii ku jira ayuu kabihiisii iska bixiyey. may odhan maxaa kabaha la ysaga bixiyey, caqligu ma keenayo. kabihiiba iyaguna iska wada bixiyeen. markii uu salaamo naqsaday baa nebigu weydiiyey maxaad kabaha isaga bixiseen. waxay dhahan rasuulkii alla waxaanu ku aragnay adigoo bixiyo annana waanu bixinay. nebigu wuxuu alayhi salaatu wasalaam aniga malika jibriil baa yimid oo ii sheegay kabahaygu inay najaaso leeyahay, saasaan isaga bixiyey. mar kale nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu reebay in fargal dahaba in la xidho. markii uu nebigu reebay saxaabadii way daadiyeen wax allaale wixii ay lahaayeen, waxay haysteen. tashriica khamriga sida anas ibnu malik uu tilmaamayo, waxay cabayeen intaan khamriga la xarimin, khamrigay cabi jireen saxaabadu. maalin maalmaha ka mid a marka iyagoo sharaabkii u fadhiya oo khamrigii cabaya ayaa loo sheego oo layidhi khamrigii waa la xarimay. wax hadala kamay keenin, dhammaan wax allaale waxay gacanta ku hayeen khamriga bay daadiyeen, ilaa magaalada madiina wadooyinkeedii ay noqotay waxa weeye khamrigii ay dareereen oo ay daad noqotay. sidaa daraaddeed nusuusta sharciga ah ayaa ka horeysa. nebigu calayhi salaatu wasalaam wuu tilmaamay xadiiska miqdaad ibni macdi karib, wuxuu uhi yaanan helin oo ogaanin nin waxa weeye barkinta waxa weeye ku dangigsan oo dharagsan oo le waxa weeyaan kitaabka alle waxaanu ka helana waanu qaadanaynaa, sunnadana waxa weeye qaadan mayno, oo caqligiisii faasidka ahaa ku kala saaraya kitaabkii alle iyo sunnadii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam. marka nebigu wuu inkiray, waxa uuna tilmaamay oo ilaahayna uu inoo sheegay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu la yimaado in la qaato. lama odhan iska baara wuxuu qaatay oo caqliga u bandhiga. maa aataakum arasuulu fakhuduuh wamaa nahaakum canhu fantahuu baa ilahay yihi subxana watacaala. wixii rasuulku idinla yimaado aqbala oo qaata, lama odhan u bandhiga caqliga, ee waxaa leeyahy qaata oo ku camalfala, wixuu idinka reebana ka taga. sidaas ayay saxaabada nebigu ahaayeen calayhi salaatu wasalaamo, wixii nebigu faro way qaadan jireen, ama ha fahmaan ama yaanay fahmin. wixii u diidana way ka tegi jireen. marka caqliga saliimka ahi ee caafimaadka qaba ee qofka muslimka ahi waa caqliga loo baahan yahay inuu sharciga uu ku fahmo, laakiin aanu ahayn inuu sharciga uu soo jiido oo sharcigu isaga dabagalo. laakiin waxaa dadka samaynaya waa dadka arbaabu shubuhaat aw shahawaat, waa dadka macaasida iyo ay qalbigii iyo caqligiiba ka fasahaadisay, ama waxyaabaha afkaarta la soo waariday ee khariban ee gaalnimada leh ee cilmaaniyadda leh ee ilxaadka leh ee caqlaaniyadda leh ku raadoobay ayaa tasawuraya. laakiin marnaba suuragal ma aha caqli caafimaad qaba iyo nas sugani inay marnaba isaga hor yimaadaan, oo caqliguna xuduud buu leeyahay. naska sharciga ahina isagaa wax oo dhan ka wada sareeya. sidaas ayaan ilaahay addoommadiisa ku addoonsaday. wallahu tacaala aclam, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاه الله خيرا وبارك الله فيه وأحسن الله إليه. داوديال waxaad la socoteen inuu sheekhu mawduucaas si wanaagsan oo faahfaahsan oo inuu kala cadeeyay. daawadayaal barnaamijkan waxaa iska kaashaday fulintiisa muassasatul karam lidawcati wa tanmiya iyo bangiga amal bank. dhowr su'aalood aynu sheekha weydiin doonaa oo mawduucaas xiriir leh. doctor waxaa jira dadka badanka ka horeysiya caqligooda nusuusta quraanka iyo xadiista waxay u badan yihiin, ama waxa la oran karaa inta ugu badan waxay tahay dadkii cilmiga shariicada wax ka bartay ama macaahid kaga soo baxay ama jaamacadaha qayb shariicada meel dhexe kaga hadhay. marka in dadkii shariicada wax ka bartay beeska hoose u dhismay inay arrimaha ku dhacaan, maxaa shaqo fikir maxaa keeni kara? waxa keeni kara asbaab fara badan baa keeni karaya. xanuun haleelay oo nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu tilmaamay tucradu alfitanu cala alquluubi kalxasiiri cuudan cuuda.
quluubta waxay ugu soo aroortaa macaasidu iyo fitanku sida waxa weeyaan qoryaha yaryar ee laysu geeyey ayay waxa weye ugu ururtaa marka qofka xanuun baa haleelay taasi waa suuragal waa sabab keeni karaya waxaa kaloo keeni karaya inuu la mucaasharooday oo la fadhiistay oo la mujaalasooday dad xanuunsanaya ama gaalo ha noqdaan ama qaar gaalo u dhow oo diintii inkirsan oo waxaasoo kale keeni karaya waxaa kaloo keeni karaya qofkan inuu noqdo arbaabu shahawaado dadka waxaa la yaqaana haaliban qofku markuu xanuunsanaya ahlu shahawaad uu yahay ee uu xumaanta doonayo xumaantii siduu ugu helo tabriir ugu helo oo xumaantii uu ugu helo wuxuu naftiisa ku qancin karayo ayaa laga yaaba wax badanoo nusuusa inuu ka hor yimaado ama caqligiisa uu yidhaahdo caqligaan ogolayn iyo waxyaabaha la midka waxaa kaloo suuragala markaa uu cilmiga dalbayeyba suu tawiya inay jirtay inaanay niyadiisu ilaahay dartii ahayn inuu niyad faasida dusha unuu kala socday dadka muslimiinta ama tulaabulcilmiga laakiin uu faasid ahaa faasidnimadiisana hoosta uu ku qarsanayey adduunye jacayl baa keeni karaya asbaabta keeni karaysa ee marnaba suuragal ma aha caqli saliimi inuu keeno kitaabka iyo sunnada ka hor yimaada ولهذا إن بدأ إلهي سبحانه وتعالى نقول خطابين هذا أفلا تعقلون أفلا تتفكرون وحي دليل تهي عقلك سليمك نبض قبا أن حنوسنين إنه دينتا كتابك يا السنة إنه فهم كريا وقاعدا كريا وقنع كريا وأنا كوري من كريم نعم دكتور واحد شكتي إن نسك آياتها القرآن كي كلامك إلهي إن يجوا متفقين ويجوا خلافان وكتيرين لكن واحد شكتي حديث إن لو الله قيبيه قيب صحيحة هي قيب ضعيفة بالشيخ ضعيف ماذا نيرف فيه نبي عليه الصلاة والسلام حديثه شيء وصحابتيسا وكل حد لي نبي عليه الصلاة والسلام مدة صدح إلى تنصى النضادة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ويويليين مركي ويليين كوي كدم بي يوسو قدبيين كنا قلب قولي كسدن بي يوسو قدبنيين وقتها دنبا بركا واحد عضي dadkii axaadiistan weylaynayey in dhowr qoloba soo galaan qola ay soo gasho aan ehel u ahaynoo xifdigooda uu liito dabadeedna inay ismoodsiis axaadiistii ay ku wariyaan xadiis aan sugnayn ama xadiis kale ka dheeh gala ama lafdi aanu nebigu odhan inay ismoodsiiyaan deedna kuwaa la yidhaahda axaadiistooda maadaama uu nawca yahay oo xifdigiisii waxba uu kala saari waayey xadiisyada uu warinayo waxa weeyaan la aqbali maayo waa daciif sababtoo ah waxaa laga baqayaa xadiis aan jirin inuu xadiis kale intuu uga ekaado inuu nebiga u tiiriyo qolo waa qolada waxaa kaloo soo galay qolo kale acdaa'u lislaam ah oo doonayay diintan inay buriyaan oo waxyaabo been ah oo aan jirin nebiga calayhi salaatu wasalaam ku been abuurtay oo axaadiis dejiyey oo waxa weeye zanaadiqo ahaa munaafiqiin ahaa iyo qaar mughafaliin ahaa oo wixii loo soo dhiibay ee aan saxda ahayn qaatay oo wariyey kuwaas ayaa soo baxay marka waxyaabaha ay kuwaasoo dhan wariyaan ayaa la yidhaahdaa axaadiistaasi kama sugna nebiga calayhi salaatu wasalaam waana cilmi la barto oo ilaahay subxaana wa tacaala uu diintan ku ilaaliyey alla wuxuu yihi innaa naxnu nazalna dikra wa innaa lahu laxaafiduun qur-aankan annagaa soo dejinay axaadiistuna waa la mide annagaana ilaalinayna sidaa daraaddeed waxaa ilaahay u yeelay culamo ahlulcilmi ah oo jahaabida oo cilmiga ku xeel dheer oo kala saari karaya xadiiska aan saxda ahayn ee nebiga loo tiiriyey iyo ka saxda ah marka maadaama ay axaadiistu labada nooc tahay xadiiska saxiixa ama maqbuulka ahi waa xadiiska shuruudo mucayana laga helo ama ragga warinaya ha noqoto ama matniga iyo xadiiska ay warinayaan shuruudo mucayana loo dhigay kuwaas ayaa la yidhahdaa xadiiskoodu waa saxiix ama waa xasan kuwa wixii ka soo hadhay waxaa la yidhahdaa xadiiskoodu waa daciif allahu aclam waxaa jira sheekh mararka qaar masaa-isha fiqiga ama masaa-isha guudba waxaa jiraysaa in culimmada laftirkoodu qaar isku khilaafaan markaasoo kale miyaanay habboonayn maadaama ay isku khilaafeenba culimmadu in anugu ijtihaadkayga saxda ah iyo ama caqligayga ma markaa kaashado anugu aan haddaan doono mid kale wajidaysto axsanta waa su-aal muhiima ilaahay subxaana wa tacaala dadka wuxuu u qaybiyey laba qolo saddexaad ma jirto markay masaa-isha diinta ay tahay ilaahay wuxuu yihi fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun inaad ahlu dikri tahay oo shareecadii aad garanayso iyo inaadan garanayn haddaadan garanayn waxa kugu waajiba inaad wax weydiiso
fainamaa shifaau lciyi su'aal jahliga waxa u dawa ah inaad su-aalo aad weydiiso. idan ahlulcilmigu markay iskhilaafayaan khilaafkooda qofka caamiga isagoo aan garanaynin kuma dhexdhici karayo. isagoo waxa saaran inuu ahlulcilmiga kii uu ku qanacsan yahay ama u dhow inuu weydiiyo wuxuu u sheegay inuu qaato. isagu majaal kuma laha, meeluu ka soo galaana ma jiro. ahlulcilmiguna markay wax kala rajaxayaan waxyaabaha wax loogu kala rajaxo caqligu kama mid aha. waxaa ka mida xadiiskani ma ansaxay masaladan lagu dhisay oo xadiis masala laga yaaba la isku hayo oo shiikhna uu leeyahay wuu bannaan yahay, caalimkana uu leeyahay ma bannaana. waxay ku salaysan tahay maalan xadiis kana leeyahay wuu sugan yahay oo xukunkan aan ka qaadanaya, kana uu leeyahay xadiis kuma sugna. waxay noqon karaysaa lafdigani wuxuu tusaya ma amar buu tusayaa waajiba, ma wuxuu tusayaa amar istixbaaba. marka waa shay u dhexeeya ahlulcilmiga dhexdooda oo caqligu aanu majaal ku lahayn. haddii caqligu uu majaal ku lahaan lahaa dadkooda culumay noqon lahaayeen, ama cilmiga maadiga ha noqdo. haddii maanta la yidhaahdo intaad dhakhtarta tirahdo dawadaa uu ii qoray, caqligaygaan anigu ku kala saaraya dawada fiican adoon weligaana dhigan wax aqoona oo dhakhtarnimo ah, cuqaladu waxay wada qirayaan inaad tahay nin waalan. sababta oo ah waxaadan garanayn oo aadan baran ma soo dhexgeli kartid. caqligaygan ku kala soocaya waxa saxsanaya waxa khaldanna suuragal ma. marka masaa'isha sharciguna waa nooca cidda baarisa waa cidda ahlulcilmiga, cidda caamada ay waxa saaran inay ahlulcilmiga wax weydiiyaan. waxaa jirta sheekh mararka qaar wadaadada lagu eedeeyaa in la yidhaahdo fatwo horey bixiyeen, haddana fatwadii dambe way ka duwantay tii horey bixiyeen, iyagoo markaa maslaxadooda iyo caqligooda markan dambe la kaashanayo oo iyagu laftarkoodiiba arrimahan soo isgelaya. horta tacniga wadaadada la tacniyo culummada la tacninayo cidda tacninaysa in badan waxay u badan yihiin zanaadiqa iyo munaafiqiin iyo arbaabu shahawaat bay u badan yihiin, oo maadaama culimmadii ay ka hortaagan tahay xumaantii ayay sidaa u nacayaan. qaarna islaamkay necab yihiin oo uurkay ku haystaan islaam nicamnimada iyo gaalnimada, afkana muslimnimo ay ka sheeganayaan. marka qolyahaasaa u badan waxyaabaha culimmada wax ka sheegan. caalimku inuu qowlu shalay ku togay ka noqday manqabay u tahay, manqaba iyo wanaag bay u tahay. diintu waxay u qaybsantaa masaa'il waaweyn oo aan khilaafba geli karin oo qofku aan isbedbedeli karin. salaadu ma waajibba mise waajib ma aha, layskuma khilaafi karo. soonka bisha ramadaan in la soomaa ma waajibba mise waajib ma, layskuma khilaafi karo. masaa'ishaas marka nin caalim oo ka noqonayo le shalay soonka waxaan aaminsanaa inuu waajib ahaa, maantana waxaan aaminsanahay soonka bisha ramadaan inaan waajib ahayn, laa yuujad. laakiin waxay isku khilaafayaan ee caalimkii maalinba dhinac uu ka eegayo. tusaalaha basiidkii aynu bixinay xadiiskan oo maanta markaan eegay duruqdiisa aan ku qancay inuu sugan yahay, xukunkii uu tusayna aan qaatay, ayaa laga yaabaa muddo ka bacdi kutub aanan hore u haysan inaan helo, duruq hor aanan arag inaan arko, kadibna aan idhahdo war xadiiskii daciif buu noqday. sidaa daraaddeed masaladii aan sidaa ka aaminsanaa waan ka soo noqday. marka ahlulcilmigu waa majaal iyaga u bannaan. qof aan ahlulcilmi ahayn ma soo dhexgeli karo. wuxuu ku yahay qof tufayli ah oo meel aanu ehel u ahayn isku soo dhex tuuray. ahlulcilmigana manqabay u tahay in masale uu shalay ku qanacsanaa sidaa iyadoo xujo kale u caddaatay inuu ka soo noqdo. ikhtilaafka ay ahlulcilmigu masaa'isha isku khilaafayaana manqabay u tahay iyo ammaan bay u tahay, uma aha wax lagu dhaleeceeyo iyo meel laga dhaleeceeyo toonna. daawadayaal waxaynu maraynaa guntii iyo gabagabadii barnaamijka. su-aasha ugu dambeysa ee uu shiikhu inagu soo xidhi doono waxay noqonaysaa, shiikh dadka arrimaha noocaasa sameeya ama dhaqanka noocaasa ku dhaqma, dardaaran guud ahaan maxaad kula dardaarmaysa? waxaan kula dardaarmayaa adduunyadan waa laga tegaya, qof kastaaba maalin buu ka tegaya. aakhire waxaa ka horeeyaana oo ilaahay subxaana wa tacaala uu inooga warramay, rasuulkiisa inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam, ima aljanna wa ima annaar. qofka qabriga maalinta la geliyo ayaa wixii uu shaqaystay abaalmarinteedii u arkaya. haddii uu yahaa qof saalixa oo wanaagsan oo ariiqa ku toosan, waxa weeyaan wadadii waxaa halkaas ay uga bilaabmaysaa naciimkii iyo barwaaqadii iyo wanaaggii. haddii uu sida kale ahaana halkaasaa cadaabkii uga bilaabmaya. marka qofku waa inuu qalbiga ku hayaa oo aanu cidna ugu danaynin, cidna inaanu ugu danaynin, ee naftiisa uu u daneeyo. ilaahay baad hortegaysaa, maxaad la hortegi doontaa? kolkoleetarkan imka aad isku dhufanaysaa adduunyada ee aad ama bariis ku raadsanayso, ama cidi ku adeegsanayso, ama aad xumaan lagaa hortaagan yahay difaacanayso, waxay kuu soconaysaa waa adduunyada intaad joogto. aakhire waxaad la hortegaysaa waa ilaahay subxaana wa tacaala wixii aad shaqaysatay
inaad ka hor timaado kitaabkii hadal ilaahay yidhi ama hadal rasuulkii uu yidhi calayhi salaatu wasalaam inaad ka hor timaado o aad diiddo caaqibadeeda aakhiro marka aad tagta ayaad arki doontaa marka inuu qofku aakhiradiisa u meel dayo aanu cidna waxa weye ilaahay baa subxana wataala rasuulkiisa ku yidhi falacalaka baaqicun nafsaka calaa an laa yakunuu mu'miniin waxaad naftaada ku dhibaysaa oo ku halaagaysaa inay mu'miniin noqon waaye ilaahay baa ku samirsiinaya wuxuu leeyahy dadkan iska dhaaf iyo waxay doonaan ha sameeyaan ilaahay baa subxaanahu watacaala ka dambeeya ilaahay baa la xisaabtami doona marka hays odhanin wadaad baad kaga xanaajisay iyo culimmadaad ka hor timid iyo waxa weeyaan arrinkaa aad samaynaysaa way dhibayaan sida dadka qaarkood ay sameeyaan inay xumaanta la soo banbaxaan oo iska dhigaan inay culimmadan ay dhibayaan culimmada kala wallah culimmada wax dhibaato aad u geysan kartaa ma jirto laakiin naftaadii baad ku khamaaraysaa aakhiradaadii baad gubaysaa maalinta lagu yidhaahdo waad dhimatay baadna abaalmarinteeda helaysaa marka waxyaabaha qofku inuu xusuusto oo uu naftiisa ka ilaaliyo inay berito timaado iyadoo la ciqaabayo iyadoo la cadaabayo iyadoo jahannamo la gelinayo inuu waxa weye waxyaabaha ka gaashaanto ilaahayna u toobad keeno risiqana ilaahay baa bixiya kuwa risiq uu la galay halkaana waxaan leeyahay risiqa ilaahay baa bixiya rasuulku wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam ina ruuxa alqudusi nafata fii ruuci annahu lan tamuuta nafsun xataa tastakmila risqaha fattaquu allaha waajmilu alab nafina dhiman mayso risiqii loo qoray ilaa ay qaadato in aan loo qorina inay qaadato xaaraan bay ka tahay sidaa daraaddeed risiqa ilaahay baa bixiya kuwa risiqu la galay inay waxa weeyaan ay caqli kaga hor yimaadaan diinta inay risiqa ogaadaan in ilaahay u qoray kana soo noqdaan طريقا خالدا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. لك باب التوبة مفتوح والقرآن دواء الروح وعبير بالخير يفوح